guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa waxay gaadhi u iibiyeen degmada Yube ee gobolka Sanaag waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen. shantii bishii labaad 2019 waxaan kugu wareejinaynaa anagoo fulinaynaa amarkii madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo ahaa in loo iibiyo gaadhi degmada Yube ee gobolka Sanaag anagoo raacnay nidaamkii qandaraasyada qaranka waxaan kugu wareejinaynaa gaadhiga mudane gudoomiye naga gudoon. geesta kale gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Timbor oo gaadhiga isaga lagu wareejiyay ayaa waxa isla goobtii gaadhigii ku wareejiyay maayirka degmada Yube ee gobolka Sanaag. maayirka isagoo dareenkiisa ka hadlayana waxa uu yiri hadle mar labaadka halka waxaan kula wareegay gaarigii degmada mar saddexaadka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo gaarigii degmada igu wareejiyay noona iibiyay ballan qaadayna wixii kale oo degmada ka dhiman inuu qabanayo iyo gudoomiye ku xigay iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Master Timboro oo aan boqolkiiba boqol u mahadnaqayno intuu gobolka yimi barasaabadiina wax badan hadda nala dhaqaajay gudoomiyaha qandaraaska iyo hay'adda oo shaqo fiican noo qabtay gaariga inoo keenay aan ku qaracnay. Maxamed Jaamac Mal wararka warbaahinta SBC Hargeysa.